أفنان وحلا يربر برا هذا ساد يعني قواعد سنة وشان وهذا هذا إيرين سانك باري إيرين فوق وكان كباريه معناه وهذا يعني هذا ما يجي محاترية ويستقبلين مرة قاكون لكن حريقة الكلمة ما يصير استعماله إن لغة كلام أما اللهجة كلامنا ما يكون الله استعماله هذا الله ما يفسره حال أرجع ولبا أرجعك هذا يرجد كبار ترجده ورجيه يرجين ورجدنا يبينين هذين كاسرياس ماشي كبار ورجده كبارين استاجوا وابو كبريا وحفر يسمى جرت محل يرجع عاورة وغيرها أفنان هنا إيرين إحسان كباري إيرين وعارف عادي أقدام سني لكن هكذا يحب أنت أربعين قريبا ما يكون شيء سي ماشي سوقش معاه ولا طورا إحسان مركب محل بحنا مكان عاد به محصورة إحسان صار مو لكن إحسان كمشكلة كتاجنه أفمحات ترى إحسان وحلوية قالنا مدة وحارة كونياتي كذا نجاري بالعالم كدام سودي يحاول قبله مركب يلا قشانتي ده مركب إحسان تو قشانتي وبدي مقطع لكن أفما ما يبغوا أرجع يحاول بها إحسان أرجع إحسان مركب إيرين إحسان كباري أرجع أرجع كبتي إلى فوق وكان كباريه سوء تتابعيه إياه كباريه سومالي أنا كنت معانا كده عاي إحسان كان أقول بطيء مرجع نستاق وابي كباري معديله وعم بعدنا مرجع أرجعنا الله والله أنا ولا يالله وده بسوء الدنيا وهذا أنا عن مرجع dadkii waa degi laayeen qof kasta inuu asagu madaxweyne noqdo haduu rabo dadkii waxa waaye way rafaadayaan marka bal aan fursadiisa siino aan si tartiib ah oo qabow ummadu dagaal way soo maraan waa la isdagaalaa laakiin ummadda dagaalka waa inuu dhamaado dadku waa inay heshiiyaan laakiin daan ha iska socdo ilaa intee buu soconayaa meel ku dhamaado lama yaqaano hayna iska wadnaan hayaan iska wadnaa هذه لا يسكوضوا لا يسكوا وحاس ورنا maxaa marka xalka la saaray Soomaaliyeed saaxirkii kala guurnay saaxirka la sheegay ayuu ma sheegi kartaan yaa waa saaxirkaas waa isticmaalkii saaxirkii kala guurnay hay maxaa ku xiga sareeyo uma nusqaamo aan siduu yahay eegne kaana siib kan nasaar Soomaa hadda maxaan joognaa saaxirkii isku soo noqonay saas ma saaxirkan isku soo noqon yaa ina kala haya yaa inagu isku diraaya yaa inoo ogol inaan heshiino marka awowyaashan haday dhahan saaxirkii kala guurnay waa inaan saaxirkii meeshii aad ka sii erideen innagana waan ka sii wadaynaa shalay dadku sidaan way ka yaraayeen sidaan way ka awood yaraayeen maanta dhibaatadu way ka weyn tahay xaga kalena fursadda way ka sii fiican tahay dadku aqoonta maanta ay leeyihiin way ka badan tahay shalay kuwii ay lahaayeen marka hadday rag u baahan tahay maqli jirtay aabahay baa geel laha waxa ka fiican la yiri ana dameera leh لأن جيل أباه ولا هذا ما محو كترايا دمير عدان ستاكو داما مرك حرية أن فانفاني إنه حرية دي أو ياش إنساس عن جيل ودي مركان شيء إنه دميره هنا أو إنك أفما ما وحال هذا لن أور نقول الدين مدبو وحال قوة قف مركو عوال جلعسية أو أور جلعسية الدين مقطع أفما ما قوة إنجليز وكل وبرت شوكل سيكو مجرد ماشي سي أتكو أريد كتور بس علي هذا مثلا علي سؤال ما له سي ذا كتور علي ولا يو علي لا واي مرة هذا محاتي مثلا برورته وكلا برورته حال عدين ولا عدين برور عدين كوجر سوما عدينته سي ذا كتور مرك عدينته معكو صاري مركز مرة عيدان لم أور نقول الدين مدبو من بير جلعسان وعلى جلعسان عدين تان هيلب كانوا برورته مدوا بيكرو ما حال مركو دبك ساو صاربا فش مركو كسو قادر انه بسادو مليا باشو عيلينو كينا مرك ما حال ربا ان لا عبسنين oo عدينته لو هايو فش وليد بهايسو نينا waxaan intuu dagaal galay waxaan fulayay taadi
waa iska soo carartay wax dagaaloo ku qabsaday sagaara meel ordaysa iyo qajaf meel aad ka maqashay aad ka soo carartay markaas wuxuu yiri hadal la yaab leh wuxuu yiri war haddii aan nala soo eriyin maxaa xaarka naga keenay baa soo naxaya marka waxaan ka wadaa hadaan xurriyad haysano xurriyad aan noqonay maanta seenahay bal fiiriya waa maamulka fiican way macnaha maxaa yeelay Soomaaliya ku maamulada miyir tagay dhamaystirnaan kuma soo noqdo qofka duu mar yara waasho wax la ku dambeynaa marka nin diintii asoo u jeeda mar ka baxay hadduu doon iska soo islaamo oo ilaahay diintiisa iyo naxariistiisa looma diidaayo laakiin qiyaadatul umma ummad in la hogaamiyo qof oo qalbigiisa oo jilaac ku dhacay oo diintii ka baxay hogaan lagama dhigaayo maalinta habeenka waxa la mesela qofka maalin ka horeeyo oo ka hor socda wixii aad helayd mesela hortaada aad ka helayd asaga horta arki asaga qaadan habeenkan ku hor socdana godkii aad ku dhici lahayd asaga kaaga horeeyo oo ku dhici waxa marka kii ka horeeyay oo godka ku dhacay inaad wax ka faa'iideysato aadan godka kaga daba dhicin haddii laakiin tiraado adoo u jeedo godkii inuu ku dhacay dama ka daba dhaca taas waa mid waa xigmad afmaynay oo aan sii turjumay afmaynay waxa lagu yiraahdaa hor dareer hamiineed hungurugay hindoogaw hor dareer geena hungurugay kaaw mana qofka maalinkii ka horeeya adiga hungurugay kaaw macnaha wixii aad qaadan lahayd ama deelayd hungurigu ka goynaa saa qaadanaay laakiin hor dareer hamiineed kan ku hor socda habeenkii hindoogaw indhaha wax ku firsan lahayd waay markuu godka ku dhaco waxa leedahay Allah ku jira muujeeda waa inaad ka leexato marka oo aad godkii ku dhacay aad ku dhicin saasa quraanku inuu leeyahay wasakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum dadkii dhulmiga sameeyay meelii ay deganaan jireen ayaa degteen watabayyana lakum kayfa fa'alna wa ma idin cadaynay saan ku sameeynay wadarabna lakum al-amthal mahmaayana waa idin soo qaadanay oo ku fahantaan waqad makaru makrahum kuwaas daalimiinta wixii ay shirqool sameyn kareen si ay dhulmigoodaas u sii wataan wax ay reebteen male bal xasan waxaan ku soo qoray dhalinyarada Facebook kuwa badan waxa laga yaabaa misalka joogna saaxiibo ku nahay Facebook ay comment bixiyaan waxaan hal maqdac yar aan ku soo qoray waxaan ri xurriyada laba ay u kala baxdaa mid qubmoos qubmoos waa taqaana soo koonfur markaan joogna aadaas moos kala beertaay qubmoos waxa laga wadaa macnaha waxaan xaqiiqo ahayn qof moos la ii tuural ama qof moos la ii dhigay qofka qof moos haduu ku istaago soo noqdaa wuu dhaca Soomaa xurriyad marka waa labo mid qof moos ah iyo mid xaqiiqo ah waxaan u qoray marka xurriyad waa labo mid qof moos ah iyo mid xaqiiqo ah talow teenu waa midee calaamatu su'aal interland dhahay bisani kama jawaabin dadkii 100 qof wax ku dhow oo ka soo jawaabay waxay intooda badan isku waafaqeen qof moos inay ahayd xurriyadu ayna xaqiiqo ahayn maxay dadku aqli beelay ma garanay moogtahay wax xaqiiqo wax xaqiiqo wala kala garanaya mid kale waxa la yiraahdaa digaagada markii la gowraco la qalaayo si yaani looga rifo dhogortan kore ama buulka waxa lagu shubaa biyo kulul biyaha markii lagu shubo inta laga rifaayo way dhimatay digaagadu laakiin markii la jiidaayo codaa ka soo baxaya qiiq ay dhahay marka qofka marka uur nugulka ay sheeganay cabsanayo xogasaas qiiq markay dhahdo inay noo soo maleynaa ma rifi kara marka asna maamaha loo sameeyay waxa la yiri doorada iyo ki guraasay rifowka la jeed waligeed baqiiqa ku haysaaday hawshaada la iska wado rifle adi ayadoo dhogortii aad ka dhamayso maadalka aad ka dhamayso markii dadku ay soo jeestaan oo dhahan waraa qaylo naga daaya danteen anaga naqaan idinku nooma yeerinaysaan sidee yeelan Turkiga waxay dhahaan anaga dib meesha naga soo gaaray walaalahan Suuriya dib soo gaaray qaxootay Turkiga ku yihiin waa culays weyn meeshoodan ku celinayna dhulkooda ay dagaayaan haddana carabta oo sunniyiinta iyo Turkiga in la kala gooyaan rabaa Turkiga waxa mabda ka ah carabta inay isku xirmaan oo maadaama sunniyiin isla yihiin waxa maanta la baabi'inayo ee la gumeysanayo ee la rafaadinayna ay sunniyiin taayeen laakiin qof kule anu arkaan iimaanka waan rumaysanahay kitaabkii quraanka waan rumaysanahay haddana la soo taagan maxaa masaajidka looga hadlayaa kitaabka hal isku xukumo oo maxaa looga hadlaa koox wuxuu dhahay masaajidka ma uga hadashaan aakhira ma uga hadashaan markaas aakhira maxaan uga hadlaynaa adduunyan joognaabe waaba noolnahay
aakhirada waa loo socdaa waana loo jeedaaye quraankan markuu adduuniya aakhira ka hadlaaya adduunka soo horeeya rabbana aatina maxali rabbana aatina fi dunya hasanatan solama dhin maxaa looga boodi way fi dunya oo loo leeyahay rabbana wa fil aakhirati hasanatan loo dhiibay lama dhin rabbana aatina fi dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan way isleeyihiin way soo socdaan innaga isweydiina marka intan mayna soo gaartay mayna soo gaarin Soomaaliya naay mayna soo gaartay warnimay runta iska sheegno dad shaki ka qaba miyaa jira inay ina soo gaartay yeen kale yaan maqlin ayuha naasu inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun yaan maqlin waa la maqlay Soomaali marka maxay ugu dhacay marka hal hadal hadii la isla dhaafo maxaa ku xiga oo ma la dilo maxay tahay ma wax la fahamsiyo ما لو وضع الله ديلك ساعة فضد يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أنا مرضى ما إذا لكل من أيام لقي يا باي يقد جيست ورك عن دين عضايا يا فضيت كان حقيقة إسلام جلايان أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم سان النبي وجعلنا أدقتينه قفوا بالنبي وجعليه قول كيسين وكيا هذا قول كيسين نجيل خلاصين إننا قفوا بالدنتي سوء سير ربون إسكيل يلاي سداس سوى أكسن معها نبي نقول نسوق جالسي إلهي بنو مرخاتي جريء ويقول اللهم فشد إلى مرخاتي كاو